waxaad ogtihiin markii doorashadu dhacdayba waxaan isugu yeernay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee madaxda Soomaaliya ah meel kasta ay joogaan hadday ahaan lahaayeen dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo hadday ahaan lahaayeen golayaasha dawladda federaalka ah iyo hadday ahaan lahaayeen xubnihii madaxdii iyo sharafta lahayd ee dalkan muddooyin kala duwan u soo shaqaysay intoodaba waxaad ogtihiin 26 January waxay ku kulmeen magaalada Garowe waxaa ka dhacay isu soo bax taariikhi ah oo hortiis aan uga dhicin Soomaaliya waxaa runtii u noqday dariiq in dadka Soomaaliyeed ee danahooda ka shaqeeyaan oo ka wada hadlaan waxaa ka soo baxay halkaas in lagu ballamo shir in bisha saddexaad dib la isugu yimaado oo khilaafkii dawladaha federaalka dhexdooda jiray lagu turxaan bixiyo waxaad ogtihiin xukuumaddan cusub ee federaalka markay dhalatayba aragtiyo cusub oo ay dhici karto dad badan inay u riyaaqaan dad badan oo Soomaaliyeed ay u arkayeen inay carqalad ku noqon karto geedi socodka siyaasadeed in halkaas khilaafaad uu ka jiray haddaan Puntland nahay sidii caadada ahayd waxaan fidinay gogol nabadeed waxaan ku talagalnay isfaham waaga jira iyo wada hadal iyo soo dhaweyn inaan ka qayb qaadano waxaan aad ugu boorinay madaxda dalka qaybaheeda kala duwan in si xigmad ah aragtiyaha kala duwan lagu dhameeyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo dalka tala wadaag laga ahaado dadka loo soo bandhigo danaha saxda ah Puntland ay diyaar u tahay inay kaalinteeda qaadato shirkii 2 May ka furmay magaalada Garowe oo madaxda dalka isugu timid falanqayn dheer nasiib darro ma aysan noqon in lagu wada jaan qaado waxaa saldhig u ahaa habkii dawladda federaalku ay u shaqayn lahayd Puntland waxay aaminsan tahay inay tahay xubin aasaasi ah dawladda federaalka sida dastuurku dhigayo dawladdu waa in ay ka mid noqotaa dawladda federaalka dawladda kaliya oo dastuuriyan ilaa iyo hadda xubin rasmi ah ka ah oo aan ku meel gaar ahay waa Puntland kaligeed maxaa yeelay Puntland markii federaalku aasaasmayay way jirtay waxbay ka dhistay dastuurkay ku dhigan tahay sida ay u shaqaynayso xubnaha kale ee aasaasmay ilaa iyo hadda kama aysan bixin nasiib darro sidii la doonayana loogama shaqeyn waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay noqon doonaan arrimo wax badan tara waxaad ogtihiin maalmihii la soo dhaafay waxaa shalay maanta waxaa ka furmay magaalada Muqdisho shir la yiraahdo shirka Somali Partnership Forum la yiraahdo oo ay ku kulmaan madasha isbahaysiga Soomaaliya iyo caalamka oo looga tashado marxaladda Soomaaliya marayso iyo sidii horumarkeeda looga shaqayn lahaa dawladda Puntland shirkaas kama aysan qayb galin waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kalifay inay Puntland ka qayb gali weyn maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada Soomaaliya iyo federaaleynta iyada iyo xubnaha kale ee dawladuhuna ay arinta ka sameeyeen waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta la eg in Puntland aan laga talagelin in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo sidoo u dhigayahay inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan tala ku lahayn oo aan waxa ka soo baxay aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka Carabiga yaqaan la yiraahdo tacliiq ama remarks qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday runtiina wax Puntland ay qaadan karto maaha bulshada caalamka oo dhan si cad bay ugu cadaysay inaysan arintaas raali ka ahayn waxa inta dheer
inay dowladda federaalku oo ahay dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinaya waa wax dastuurka ka soo horjeedo waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland doorashada ka dhacday processkeedu la wada arkayay doorashadeeda loo wada jeeday waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato shirkan hadda dhacaya wuxuu dib u dhacay muddo sanad ka badan October-tii hore inuu dhacahay waxa dib loogu dhigay doorashadii koonfur galbeed oo markaas la rabay inay sida maanta u tahay loo sameeyo waxa haddana ay ahayd inay dhacdo July waxa dib loogu dhigay doorashadii Jubbaland inay ahayd sidaan inay u dhacdo wuxuu ku soo aaday waqti xasaasiya waxaan runtii saaxiibaday iyo madaxdayda dowladda federaalka ah oo runtii dad aad aan isu naqaano oo saaxiibo dhow nahay aragtiyahan aan ku kala duwannahay marar badan aan u sheegay in ay habboonaan lahayd in wada hadal muuqda oo furan la geliyo dalka Soomaaliya waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda ah meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan dowladda Puntland waxay diyaar u tahay wada hadal furan oo shaashada laga daawanayo sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo waxay Puntland diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato sidii dalkani uu uga bixi lahaa habacsanaanta jirta